waxay ka kooban tahay intaan xubno waa madaxweyne ku-xigeenayaal waxay ka kooban tahay wasiiro waxay ka kooban tahay wasiir ku-xigeen dastuurkeena markii qodobkaasaan fiirino 44 kuma jiro wax la yiraahdo wasiir dawle haddaan wasiir dawlada ku jirin annaga waxaan noo soo magacaabay hadda 9 wasiir dawle marka meesha iska qabanayaan 9kaas wasiir dawle iyo qodobkan ma garanayn in loo cadeeyo rabna waa qodobka 45aad faqradiisa labaad madaxweyne ku-xigeenka waxaa magacaabidiisa iska leh madaxweynaha asagoo la tashanaya odayaalka dhaqanka ilaa hadda wax madaxweyne ku-xigeen aan hayno ma jiraan mana naloo sheegin baarlamaanna looma horkeenin mana ansixin ilaa hadda marka waxaa cadaalad darro iyo sadbuursi iyo ku-tagrafeed iyo eex ku samayn awood qaybsiga qabiilada yaan arkaynaa waxaa ka mid ah tirada wasiirada waxaa ka mid ah darajooyinka wasiirada qaarkood waa maaliyadoo kale wasaaradda arrimaha gudaho kale la yiraah qorsheynto kale yani dad gaaraa qaatay oo la siiyey mana mutna marka awood qaybsiga wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada dowladda tirooyinka la siiyaan rabaa inaa idiin sheeg marifle oo 8 wuxuu qaatay 16 xubnood marifle oo 9 wuxuu qaatay 7 xubnood digil wuxuu qaatay 11 hawiye waxay qaatay 9 biimaal waxay qaateen 6 daarood oo ogaadina wuxuu qaatay 2 beesha shanaanda 6 qaatay idinkaan idin daynaya dadweynahan u daynaya cadaaladda meeshaas ku jirta inaad idinka ka soo saartaan waa idin sheegay tirada 57 wasiir say kala yihiin dhinac kasta u hadlay aniga kelmado gaabanaan ku darsanaa oo aan u jeedinayo dhowr qofood oo kala duwan waxaan aniga caddaynayaa ilaahayow adaa markhaati ka ah allaahuma balaqtu fashalan dhahay anoo xildhibaan koonfur galbeed ah oo u dhaartay dalkan ka mas-uul ah bulshada koonfur galbeed inaan raalli ka noqdo in lagu tunto xaquuqdii oo nooc kasta lahayd ay lahayd koonfur galbeed hadday dhaqaalo noqon lahayd haddii wixii dhaqaalo oo looga shaqayn lahaa amniga shacabkii caafimaad wixii looga shaqayn lahaa wixii waxbarasho looga shaqayn lahaa waxay noqdeen wax jaab shakhsiyeed ku xaroonayo dowladda dhexe waxaan u sheegaa koonfur galbeed bulshadeeda lacag ma siiside shaksi ayaa lacag siisaa lacagtaasi mid oo shacabka koonfur galbeed loogu daneeya ma aha mid ay xildhibaano wax ka helaan ma aha mid shaqaalo dowladeed nooc kastaba ha noqdo uu wax ka helo ma aha mid haddii alle uu ku rooyahay ciidamada sida ba-an baahida ku shaqaynaya ee ka maalin walba qoryaha la goosanaya duruuf awgooda wax laga siiya ma aha taa aniga waxa aan ku hadlaya haddii aad u baahan tihiin haddii aad dowladda dhexe tihiin waxaad u soo dirsan kartaan caasimada kumeel gaarta ee gobolka baay guddi oo arrintaas idin xaqiijiya beesha caalamka madaxda sare ee xukuumadda federaalka sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kheyre iyo guddoomiye jawaari ama labada aqal ee baarlamaanka ah waxaan baaq ugu jeedinayaa madaxweynihii koonfur galbeed inuu ku tuntay wixii dastuur ahaa iyo sharci iyo nidaam ee dalka u yaalay hadday mas-uuliyad idinka saaran tahay oo beri lidin weydiin doono bilaahi calaykum waa idin soo bandhignay soo farageliya ee arrintan kaanay wax ka qabtaa war aawey koonfur galbeed ma jira miya aqoon-yahan ma leh miya siyaasi ma leh miya aawe siyaasiyiintii iyo aqoon-yahanadii iyo koonfuryahanadii shacabkii koonfur galbeed aawe war jaaliyihii koonfur galbeedow waxaan idin leeyahay koonfur galbeed shacabkeedii iyo hantideedii iyo dhulkeedaba badbaadina u baahan yahay faruuxu ka bixi rabaayo hala soo gaaro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu okay marka la imaado maalinta ku xigtana waxba ansixiyana leey midna fiicanta ma saxmata wixii on laga maaragtay munaaqashoon oo dadkii aynan isaga imaanin oo wixii dastuur aan ahayn laga hadlin in la imaado oo haddana ansixiyana la dhaho maalinta kale waa la xiraana leey weliba waxaan rabnaa horta marka koonfur galbeed 3 gobolba inay ogaadaan laftirkeena inaan nahay dad la haysta oo si sax ah u shaqayn karto
taasoo koway ka tahay madaxii ugu sarreeya wuxuu ku tumanayaa dastuurkii iyo sharcigii uu noo dhiibay shalow ammaanka nooga dhigay qodobo badan oon ka mid ahayn والكست والوجي أنا ما بدي هذا الكي الدستور من العدلاء قفلوا ولا كهلاين قفلوا ولا كصوبني يلك هلي يدستور كي يلك كذا دستور كي سجاها ولي بوا لانكي شرعي لاليها إما دعويناه شرعي لاليه يا شرعية كالتمذي يصير شغلنا كل صعود وايتي ترى نتكلم يسكتويرين يادو ونشرع الدجالة هايني أنا حرون الله أنا حرون البرلمان كأن هذا فروي أتصي أنا هات اللسان ونيو لنك تلقالي أنت ونك شقين ماشي لي أن ميلن وحيصل والقر ذكر أن ولا تلا حدثي باور شيرين مكسلا يسن بيلا كصودا بيلا نكصودا أنا دليل أنت يدي بياي ولي يدي بياي ماشي قبل كوالكجار مله والكجار مله مركان الله النظام كي ونلنك تلقالي الدستور كاي مجرى وايو ما يكون مذاه مدعوينها فور اكزامبل شغليس ما يكون هايكور دكاي دستورك حل جود الشلام قضب له هو ايونا يتو اني يسحان وسد اني اسع زيله الدستور اني يسجبي دستور كجبي ويبقى الدستور كغوري لما مدعوينه كخيجين اني يسحا دس غدبي برلمان كان غدبي لين انساهيه markii lan ansahiye kuriyada tan markaas kuriyada dawladda sakoro dawladdu saadasi isoo kullu taladaw lamada madaxweyne ku xigeen yaalkii taynkeena hore xildhibaanada ay sheegan yahay in macnaha la ka dhawaaq lama sano iyo wala jaraan ilaa ay hata mahayn dawlad saha ka dhisan lamadii madaxweyne ku xigeen isoo kullu talado ilaari man dhasan maana kullu talan isoo kullu talado madaasna hadii gudbi yahay okay horta toona naatalahan hadi deeri mala taas jawaabtay madaan deertay iyo laakiin waliba boo uu shabku arwaaysanaa doon ku gobsado waaysanaa wala omablanin adkaysada korna shacabki jiliteen timadin yishiidayaan ufada ufqof aflawin ma ani ufnin leer waan waliba wal meedo ku jaro dastuurkan liiska maamulo ogolna ani insa rabitaan shay gaar ahaaneed nidaamul iyo ku soota aan fiirsan muddo badan aan fiirsan maan fiirsado doonna maan ogolaado doonna walaagi dastuurkii sharci hoosaadka ku baasan ilaa yoonay tawaan wariba warka dheeradi dhowr meelin ka talgalay ka sheegana tumin ishan qodob ayaan goran oo qodob dastuuri ah sharci hoosaadna idin ku goran todob qodob aan ku goran oo iska tumadi waa sharci ilaalihii ismaamul goboleedka koonfur galbeed madaxweyne yalana ilaa iyo hatta madaxweyne wala noon system ka maamul goboleedyada ka dhisi dawladda dhaxal hoggaan haydi qaramada badow goobjoog ku haydi asluubin systemki isugaay oo waliba waa ku jirina hoos ka dibna madaxweyne lana iyo hadana takrifalkaas yeelanay suubiyahay maka dulqaadaan ma warbadan la ka sabri shacabka koonfur galbeed ma in sheegana uu mas'uulku ku eena oo golaha wakiilada in dooradaan ani uu waliba waa ku dambeey أن كسبرنا وسيما والتوسيو والموجيو أنا يتوسط أمتك قناعة أني أسا حكتوس إيان كباغان والتوسيو نسكبيرني السلام عليكم